السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبنا دين سلام يا ومدة الصوماليات ميل ربوع جوكتان يسول بدي مالي سامبا. وحن مقال كان دونا يا وانت نانك جاه دور أرهمت أرنتي آد حساسي يحوق بدن وأن سوء أرودي معلومة الصوت عفي وأنا هودا كم قناة. وحن كهذا دونا نيكي كربار اللي جاي مذوبة وجاي على صوت تهريبي على الشعب كنا دحمر سيء لو ما جعابي شمبر ودونا يا إن وجاس محمد وجاس حاشي أو وجاسك بيلها السدة مركا حيلك لقى قاضو وياك قاضي أحمدو بقى سو قاضي قرشها سعيدة وضطها ويال دبدك الريحية يقرشها ككرسن قرباري أيام كهل دونا مركا وارس وحنا كلو كهل دونا حق كنتي آد حساسي مدبضنا رادت كده أنا وعن فلانقية يسد السوق آدن يهين أو كو آدن إن حسن شيخ محمود يموسى أو الشقين أيام موسى الله الله جدي Somaliland oo ka shaqeynaya arrimaha dagaalka Somaliland cusub ay soo qaadayso iyo abaal badan oo Muuse uu ka sheegtay Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay abaalkaasi ay yihiin iyo arrimo kale oo ayaguna ku ala xiriirana waa falanqeyn doona waxaan kaloo finally ka hadli doonaa ninkii Xamse la oran jiray dadkuna ay marxuumka ugu yeerayeen oo marxuum oranayay ku magacaawna ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa la doonayaa in sidii rooble loo isticmaalo maalmaha fooda nagu soo haya waxaan la doonayaa in gacanta laga geliyo kiiska Iran oo la yiraahdo Fahad iyo kulane iyo naman la mid ah kunab dushana ka saar waxa la yiraahdaa kiiskani kana tirtir mahad salaad iyo rooble waxa la doonayaa in loo isticmaalo si rooble loo isticmaali jiray qorshahaas oo bilow ah meel fiican nimanka u marayana oo falanqeyn doona waan fashili doona soo dhawaada meel walba aad joogtaan isoo bod in maqlaysaanba haddii aan ku bilaabo arrinta gobolka Gedo ama Garbaharey imaanshihii ninkii shimbir la lahaa ayir soo tahriibe garbaarayna ku soo galay qaab ilaa hadda aan la aqoonin xogaha ugu dambeeya oo ninka soo galitaankiisa magaalada ah waxay sheegeen dad aan aad ugu kalsoonahay in asagoo lugeynaya uu ka soo dagay buurta militariga ilaa iyo maanta aysan jirin cid garan karta cid ninka magaalada keentay waa hadal weyn oo tuhun ku abuuraya ummadda Soomaaliyeed muujinayana waxa ninka uu yahay inta wixii ka dambeeyay markuu ninka magaalada uu soo galay ugaas Maxamed ugaas Xaashi waaska beelaha sade ee Garbaharey markaasi fadhiya ayaa warbaahinta laga wareystay waliba khaasatan Twitter space wuxuu ugaasku ka hadlay inaysan suurtagal ahayn in la aqbalo xilligaani nin laga soo shib gareeyay kismaayo dhulkana soo maray cid keentana aan la aqoonin ina markaa aan la aqbalaynin wuxuu ugaasku xaqiijiyay in sunnihii ahaa qof Axmed Madoobe ka socda laga dooni maahay Garbaharey in lagu socdo waayo waxa Garbaharey yimaaday ninka loo yaqaan oo xirsi dhagax baa looga saara Garbaharey yimaaday Maxamuud Said Adab dhagax baa looga saara suurtagal ma aha mar kale nin kale oo nimankan ku reer ah nimanka ku hay magaalada anaga iska leh nin ku reer ah inuu markaasi uu joogana waxay muujinaysaa marka qabyaalada reerka inta la isku raacay iyo farxumada maanta ay dhexda ka taagan yihiin ayay muujinaysaa wixii shal dhagaxaanta ku tuurayay inuu xursi reesiyad bi ahaayeen wixii Maxamuud Said Adab ceysnaa reesiyad bi ahaayeen wixii qof walba arkaba reesiyad bi ahaayeen inay maanta shibir soo dhaweeyaan waxay muujinaysaa waxa reesiyad 15 sano la soo dhaafay ee la waasheen ummadan u horboodayeen kaliya inay ahayd inay kursi yar oo Axmedobaad soo xarxariqay inay ku qancaan waxaan maqli jiray qofka hanka yar ma hana qaado haday saa beesh u han yar tahay mana ha qaadayso waxtarna ma yeelanayso ummadda ma raaci karayso sidaa daraadeed ugaasku go'aankaas soo qaatay warbaahintan laga sheegay wixii ka dambeeyay waxa loo soo diray ugaaska 9 nin oo reesiyad ah oo marmarka kamid ah aan magacyadooda hal u sheegi doono mid kamidana uu qaraabo dhow ila yahay ayaan mar baan ka sheekeen doona ayaa loo diray ninka loo yaqaan loo diray ugaaska waxa la yiraahdaa la fariiso dhaqaalana soo si kuna qanci inuu maxaa la yiraahdaa uu la shaqeeyo ninka shimbir leeyahay ugaaski markay hor tageen ugaaska arta uu ka diiday wuxuu yiri anu maqaamka aan ku fadhiyo mid baxawaadla iyo mid Garbaharey leedahay ma ahayn waa mid ummadda gobolka Gedo oo dhan iyo Mareexaanka iyo Sado oo dhan baan ku matalo diinta Mareexaan fariista ama sida fariisto ku tashado inaan Axmed Madoobe raacano waa lees xayaan go'aanka ummadda ku shaqeeya haduu diidana ay diidaana yeeli mahayo marka sagaalkiina iyo wiilkeero in adeerkiina ay ku xareysan madaxtooyada 15 wiil la waardiyeynayso go'aankiina kuma shaqeyn karayo ummadda u taga ku qanciyo hadii ummaddu idin ku raacdo isoo laabta wixii inta ka dambeeyay nimankii sagaalka laba u kala jaban qayb waxay ku qanceen hadalka ugaaska oo waxay yiraahdeen waa dhab ugaaskan ka xishoon ummaddan ka xishoon qayb soo hartay oo aan badnayn
ayaa arintii ka xanaaqday waxayna gaareen heer ay yiraahdaan ugaaska siisa ugaas nooma anaga soo ugaas ka dhiganay waan bedelaynaa bay yiraahdeen badku ugaas iyo markaad bedelaysaan dadka saldanadan maxaa la yiraahdaa badadunku mas'uul ka tihiin umada aad ka xigtaan ugaasnimada waa akhlaaq xumo waana ceeb iyo fashil aan la fiirsan kareynin mar baan arintaas oo dhan ana hal dul istaagi doonaa indhahaygu anigu ma qariyaan reernimada Garbaharre taala iyo nimanka aynu jifada nahay qurunka isku sheegayaan indhahayga ma qariyaan inka doonaya inaan taageero waa inuu khayr sameeyo ninka doonaya inaan diidana adur aabahay ha ahaadee oo halkaan aan kala hadlana hadii lugaha la galo waxa dhiiqada ah aan 24/7 ka sheekeeyo inaysan shaqaynaynin nimanka mar baan ka hadli doonaa hadda waqti badan ma hayo sida daraadeed waxa dhacday in nimankii kala jabeen qaybna diideen qaybna ay dhaheen ugaaska baan ka qaadanaa xilka hadalka saaka Shimbir ku hadlay oo uu yiri ugaaska shaqadiisa ha qabsado hadii kale waan bedelayaa waxaan jabaad ku socoto ugaaska oo la doonayo inuu markaa uu Carabiyeysmo message ka imaanaya Kismaayo iyo ninka Shimbir leeyahay hadii uu diido sida uu hore u sameeyay in la Garbaharre la keeno la sameeyo ugaaska loo macmal ah عربنا كوبا هنا معدان أنا قبل دين دبوا شغادي أبو درستين لا أنكو عدي دين هيان وقادي وماريا وعيد بهنينا مارسان هنا بجورستان هنا أتغني كردكتان بيو بهني واحد بدنا ما هو حركة وانا ذكر غير هذا نيا أدي أيسن تاسو دعنا هدي وحنقبا إن لا حساب طبعا وعيد مدن وكلا لقاط هذا كسب به وين شغادي ودي خاصة ولي وحنا هدي dhaqanku isku dayanaya hadda hadii dhaqanka laga leeyahay oo siyaasad la galay waa fasahaadinayo dhaqanka iyo ugaaska iyo kala qaybin umada la kala qaybinayo waana tilaabada ugu horeyso ninka Shimbir leeyahay marka uu qabanayo waxa musiiba marka in raysiyad laga waayo cid halka rali gelin ka bixisa inkastoo mar dhow waxa musiiba noqon doontaa in la waayo cid halka ka hadash Shimbir awood oo male ugaasuna soo ma magacaabin dadkana kaga ma sokeeyo mana sameyn karayo inuu yiraahdo ugaaskan bedelaya haduu sameeyana wixii ka yimaad caaqibka asaga iyo reerkiisa qaadaya waxaynu hore marka aanu aragnay oo taa ka darnayd in ugaaska la weeraray nimankii weerarna reer siyaad bay ahaayeen ana halka ka sheegay cidii u baahan inta la sugu yeeray bay ka wada dhaarteen ana garanay magacyadooda ana garanay dadka ay yihiin dadkii amray listigoodii ana baqaati ku hay markaysa ana ayaga ku reer ah sheegayaan ayaga weeraray niman odayaal ka mid inta la hadlaxan ku irir ka bixiya maqtani kan bixiyan ku irir ugaas la xabadeeyay raali gelin ma deeqdo siiya ninka maqtiisi baan ku irir markaysa waa diideen maanta markuu waxay marayaan inay yiraahdaan annaga siinayna annaga xilka qaadayna shalayga xabadeeyay waa musiibo aan loo meeldayn lama fiirsan karayo umada dad gobolka degan mareexaan umada daarood arintan inay soo fargelayaan ku hayaan way 15 wiil oo qoriyo wata iyo laba nin ku reer ah oo Axmed Madoobe midna kala soo hadlay Kismaayo ka soo shib gareeyay oo ku xareysan madaxtooyada Garbaharre maqaamka umada gado looma afduubi karayo gado oo ka kooban 8 degmo iyo 24 tuulo gado oo ka tirsan 15 wiil iyo laba nin oo horjoogayaal ah oo midna Kismaayo laga soo shib gareeyay looma afduubi karayo suurtagalna ma aha dadka Garbaharre jooga cid yaraan baha ahaadaan inay aamusnaadaan waxay sheegaysaa waxa ay yihiin bay sheegaysaa intaas qodobka uga baxaya arinta ka socota laascaanood runtii xog aad xasaasi ah halka laga helayaa waana xog fura u noqon doonta arrimo badan oo maanta ka taagan dalka Soomaaliya oo dhan meel walba la fiiriyo dagaalkan dambe hadda uu Muuse ku soo qaaday laascaanood maalmihii la soo dhaafay dhacay dagaalkaas intii uu san dhicin ka hor oo la qorsheynayay ayuu Muuse sameeyay kulan uu sugu yeeray dad asaga marka tala wadaag la ah dadkaas aan soo gudbiyo xogta anigu aan sheegay laakiin magacooda ma doonayo inaan soo gudbiyo inuu ku mahadsan xogta dhexaan xogta marka waxay sheegaysaa inuu Muuse ka abaal sheegtay Xasan Sheekh Maxamuud oo uu panelkii u sheegay inuu waxyaalo badan Xasan u qabtay garabna u yahay abaalna uu hayo waxyaalihii uu qabtay Muuse waxa kamid ah inuu guddi u saari waayay Xasan Sheekh Maxamuud wixii ka dhacay magaalada Laascaanood oo qaramada midoobe ay ku yiraahdeen guddi u saar soona qiime wixii meesha ka dhacay Xasan artaasi hoos buu gashtay una saga dhaqaaqa waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad Xasan wuxuu aamusiyay odayaashii Hargeysa ka soo laabtay awalna asagu uu sheegay inuu diray Laascaanood markay tagay way hadleen laakiin markay Hargeysa ka soo laabtay way diideen inay hadlaan arinta Xasan baa ka dambeeyay waana la aamusiyay waxayna qaramada midoobay ay ka suugaysay odayaashaas inay sheegaan wixii ay ku soo arkeen Laascaanood iyo wixii ay ku soo arkeen meesha loo yaqaano
hargeysa ka bacdina ay sheegaan cid qaldan oo loo baahan in la qabto waa laga sugayay afkay gacanta saarteen waa la laalushay waana kala tagay odayaashaasi qodobka saddexaad ee xasan uu sameeyay waxa weeye in lacago deeqa ah oo la siinayay maxaa la yiraahdaa dalka oo dhan qaybtii Soomaaliland ku aadanayd in gabi ahaanteed Soomaaliland la siiyay oo aan waxba laga siin SSC isla lacagtaasina ay ahayd mid hadda dagaalkan dambe Muuse uu ku soo qaaday asagoo lacag la'aan ah ayaa lacagta loo geeyay dagaal buu soo qaaday waa qodobka saddexaad qodobka afraad oo ugu dambeeya wuxuu Muuse xaqiijiyay inuu xasan Muqdisho ka dhex abaabulay maxaa la yiraahdaa kooxo magacyo qabiil wata oo markaasi dagaalka la sacaanood ee halganka u beddelay mid qabyaaladaysan si dawladdu marka ay u tiraahdo iyo fila Soomaaliya iyo xasan iyo dambu shariidba ay u yiraahdaan meesha waxa ka socda waa arrin qabiil iyo qabyaalad ma doonina dhaxgalno waa projectii la oran jiray Hooley project urur Soomaali iyo irir Soomaali wixii lahaa inay ahayd project uu xasan sameeyay Muuse la ogaa oo dadkuna ay wada arkayeen wuu cadeeyay abalna waan oga haynaa buu yiri halka markay maraysa marka waxaad arkaysaa marka hadii intaayo dhan uu xasan u sameeyay because of in la sacaanood ay gacanta Soomaaliland ku sii jirto ama inuusan guuleysanin halgankii SSC muxuu kala xasan u sameyn karayaa waa su'aal isweydiin mudan una baahan umadu inay fiirfiiriyaan maxaa kala dhacay hadii inta ay dhaceen maxaa kala dhacay oo inuu fiirfiirno ayaga marka meelaha fiirfiiriyay xoga badan aan dib u xuraamay saameyntii kala dalka dhacday aan fiiriyay waxaan arkay oo aan fahmay marka hore in halganka SSC waxa uu ku bulaalay oo uu ku baxayay waxa uu weyn ee ahay taageeraha ummadda Soomaaliyeed ee u muujinayeen ummadii laga gardarnaa ee xaq ku dagaalameysay midnimadana doonaysay inay ku soo celiyaan la sacaanood ee SSC ahay xoog iyo dhiigga SSC ay ku socdeen oo dhan markii la soo koobo waa saboodka ummadda Soomaaliyeed oo dhan khaasatan beelaha daarood ee meel walba degan saboodkoodii kiib u ahaa ummadda Soomaaliyeed oo koodina kiib u ahaa laakiin kan daarood saameyn kale u lahaa oo aan doonaynin inaan gudaha u galo sidaa daraadeed waxa ka socda Garowe horena waan u sheegay xasan baa ka dambeeyay waan arrin la sacaanood la doonayo in lagu fashiliyo waxa maanta gida ka socdana xasan baa ka dambeeya aydan waxa la doonayaa in lagu fashiliyo waxa ka socda meesha loo yaqaan la sacaanood waa dhab in gado aysan lahayn saameyntii Puntland lahayd mid u dhow iyo mid la mid ah midna inaysan lahayn laakiin markii laga hadlayo saameynta ay u baahnaayeen ama ay helayeen SSC saddex qaybood bay ahayd mid waa saameyn waxa loo yaqaan dhaqaale mid waa saameyn hub iyo support saameyn ah midna waa mid siyaasadeed midda ugu dambeysana oo afaradan ku dari karayaan waxa weeye waa mid shacab iyo taageeruhu waa moral weeye garoonka Brunei marka soo ciyaaraysa in lagu support garayaa message fiican lagu soo diraa hiddiilay ku gelinaysaa reegido waa dhab hubna ma aysan bixin karin meesha hub laga bixin lahaa ma joogaan ciidanna ma aysan geenin laakiin waxaan ka warhayaa inay taageero afeed oo xoog leh ay ku support gareynayeen SSC waxaan kaloo ka warhayaa in qurbaha khaasatan magaalada Columbus oo ahaa iyo meelo badan oo qurbaha ka mid ah jaaliyada reer Gado ama beesha Marxaan ay dhaqaale badan ku support gareynayeen iyo intii uga aadan wax halganka meesha ka socda in lagu furo Gado tashuushkana sababta loo sameeyay waxay tahay inaysan nimankaas oo dhaqaalana ka imaanin aragti siyaasadeedna ka imaanin support afkana uu ka imaanin xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo dadka ayagu ka tirsanaa madaxa la isku geliyo oo busy looga dhigay gobolka Gado Puntland sidoo kale in dadka shacabka ay aruurinayeen dhaqaalaha geenayay hubka soo qaadayay maxaa la yiraahdaa dhaawaca bixinayay diyaarada dhaawac lagu qaadayo banaanka u taagnaa in marka ay la kala qaybiyo xabad la dhaxdhigo labada dagaal saameynta ugu weyn ee maanta ay leedahay iyo baasinka xasan ku shubay Gado goolka ugu weyn oo laga leeyahay waa arrinta la sacaanood waxaan la doonayaa ummadda in la kala qaybiyo waa divide and rule oo soo daahday maanta xilli qaldan maraysa way qodobka halkaas aan uga baxay waxaan doonayaa in SSC ay ku baraarugaan kuna toosaan xaaladda meesha ka socota dagaalkaasna qiimo walba ku baxda waa in soo gabagabeeyaa way taa waa halkaas intaas halkaas aan uga baxaya qodobka ugu dambeeyo doonayo in halkaan ka soo gudbiyo waxa weeye ikii xamse ahaa ayaa waxa la doonayaa in dhexda loo geliyo xaalad uusan qaadi karinin oo aad uga culus kana horeysay waxna uusan kala soconin xogta laga heli karaya hadda oo xamse uu heli karayana ay tahay xog mahasalaad ka timaado dhinac ka rab dalkaysa maalin weyto markay islaantii Ikraan dhashay warbaahinta ka hadlaysay ayadoo waliba aad u naaxaday aan iri talab meel bay ku xirnayd oo xoolo lagu siinay ma garanayo laakiin sidii hore bay ka balaaqray whatever markay hadlaysay baa nin saaxiibka ii dhow waxaan ku iri islaantan hadalkeeda hadal baa ka dambeyn doona saaxiib soo fiirsan ku iri wala yaab saako isoo wuxuu yidhi wixii aad sheegaysid shaqo ka jira
عند الله استعمال أيه وكيس قعنت اللو قلنا ويهنيك اللو يقعن الرب اللي نكلا حمسة مركي أنفيري ما أهانين كلام قران كرايا محاسحن يمحاقلدن وانين آد نقول حسن الشيخ محمود مرة هراء وشيء وديفريشن كبحي فرح معلنا وحيري نينكاسو وهاندي مان ويبوير هاندي مان كحال هذا دتك يقانا فرسمة قعنتها يقانا دهية حراء مصباح هذا دربيده كقرعة وحياة نوعاسة فرسمة يقانا أو بورصة يرتع وطود دبها يا مصابيرته يقول شو تايا هاندي مان ليه هذا مركب حيري وهاندي مان وكله ماشي أترى مصباح يقول فاي مصباح يقول فايا ما هنيك قرنا يا ورمحاق الضرب يمحاصحن نينك ساري كاري كالكوليشن كنوع عايا معهن عقلوا هذا مقال كذي أنا بفكر تقرأه نين دير هذا أرتاي نين دير هذا أرتاي بعير دقني ما أقوم مرقات كعبالير هذو مدح دوبيه أنا كل عربي يسيسب أركيسا وحكم مقدمرك نكا نادو يوز كرينا يو very nice أمريكا لفيريا هذا نكا كوشة قيسانية بوزيشن كذا مكلا فيريا أدبو في عيه لكن أمد ذكره دبعت بدن بوجيسانية أنت سامسوكو بيا ندب سؤال الله ورينو عندك ترى سألنا بعدينه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.